shanta kabood ee sneakerska ah ee dadku inta ugu badan ay xidhaan sanadka 2020 waa kuwee waa mootino oo kala lifestyle-ka soo dhawaada kabaha horeeya waa kabaha loo yaqaano number 1 ugu badan ee sanadkan aadka loo xidho waa kabaha loo yaqaano Adidas Samba Lux ama kabaha loo yaqaano Samba kabahan runtii waa kabii all money la oran jiray loo isticmaali jiray biskaas laakiin muddooyinkii u dambeeyay kabahani aad bay soo bateen oo dadku ay xidhaan labisiyo kala duwan bay u xidhaan goobo kala duwan bay u xidhaan runtii kabahan waxay noqdeen kabaha ugu trending-ka badan marka loo eego caalamka kabaha labaad ee kaalinta ku jira waa kabaha loo yaqaano on cloud 6 haddii aad magaalooyinka qaar tagto kabahan dadka taajiriinta ah oo kaliya ayaa xidha runtii kabahan waa kaba design-koodu ka duwan yahay designada kale soo kalena aad comfortable waa oo dhanka socodka iyo soo kale dhanka jimicsigaba runtii kabahana muddooyinkii u dambeeyay waa kabaha aadka looga xidho caalamka waana kaba sneakerska oo raasamaal leh kabaha saddexaad ee sneakerska ah ee ugu wanaagsan ee la xidho sanadka 2016 dadku waa kaba loo yaqaano ISIS GT 2160 kabahan waa kaba la isticmaali jiray waayadii hore waa design hore oo dib loo soo celiyay oo the production code muddo hore ahaa laakiin dadku dib bay u soo isticmaaleen oo trending-kii ayuu dib u soo galay runtii kabahani aad bay u wanaagsan yihiin waa kabo aad ku qaadan karto baagiga labisada baagiga street styles oo kale iyo soo kale labisyo kala duwan oo kale waa ku galayaan kabahan soo kale jeans oo kale suwaak jeans oo xidhan kartaa oo kabo aad u wanaagsan soo kale strawisha leenka oo kale oo xidhan kartaa waa de kabo aan oran karay waa kabooyinka muddooyinkii u dambeeyay la isticmaalay laakiin aad u wanaagsan ee ku jira kaalmaha horeeya kaalinta afraad waxaa ku jira kabaha loo yaqaano Nike Zoom 5 ama kabahaasi runtii waa kabo iyagna dhanka design-kooda kabiyahan soo sheegnay waa kaba sneakerska waxa weeye waa trending-ka kabaha ku jira ee sanadka 2016 ay dadku inta badan xidhaan kabahan badanka qaab dhismeedka jimicsiga ay u sameeysan yihiin oo waa kabo aad ku isticmaali karayso dhanka jimicsiga horta marka koowaad sneakersku waa ay noocyo badan yihiin ujeedooyin kala duwan oo loo isticmaalo qaar labiska loogu talagalay qaar labis iyo xaragaba way geli karaan iyo jimicsi qaar jimicsiga goon u yihiin oo loogu talagalay yacni kabaha sneakerska qaar baa labisyo kala duwan ku galaya jimicsina ku galaya soo kabahan Nike 5 ama Nike Zoom 5 runtii aad bay wanaagsan yihiin kabaha shanaad ee soo qaadana waa Hoka Clifton ama Hoka kabahaas runtii waa kabaha sportiska jimicsiga ujeedooyinka loogu talagalay waa kabo qaradoodu aad u weyn tahay xagga dambe oo waa buush oo aad ku lugayn kartaa muddo badan inta badan sports ku dhex jira moorada haato ama olympic haato adoo any kind of sportska ku dhex jira haddii labisku ka khaldan yahay ama waxyaabo kala duwan oo dhanka labiska aan ka garanay waxaan ku diyaarinay package dhameystiran qaybta website-kayga booqo xidhiidh.com kadib qaybta personal styling-ka kadib buuxi foomkaas waxaan ku diyaarinay packages maalin week ilaa 30 cisho oo labisyo kala duwan oo aad xidhan karto bal adiguna la wadaag kabaha sneakerska ee ugu wanaagsan sanadka 2016 waa kabee